nashqada gurigan waxaan u diyaarinay macaamiil jooga magaalada Jigjiga. Cabirka gurigani waa 12 mitir iyo 18 mitir. Dhawaan insha Allah ayaa laga bilaabi doonaa magaalada Jigjiga. Gurigan wuxuu ka kooban yahay qolka fadhiga oo waafiya iyo sidoo kale fadhi labaad oo daarada yaala oo familigu waqti ku qaato iyo sidoo kale kitchen iyo dining-kii oo noqonaya qaybtii cuntada iyo sidoo kale laba qol oo hurda store iyo sidoo kale laba suuli iyo qolkii master bedroom-ka iyo hal qol oo study room ama sidoo kale noqonaya studio. meel kasta oo gurigan kamida macaamilka waan uga faa'iideynay 1 mitir oo kaliya oo gurigan aan macaamilka ka qasaarnay ma jiro. dhammaantii waan uga wada faa'iideynay macaamilka. faahfaahinta gurigan oo dhammaystiran nala daawo. marka koowaad ee guriga la soo galo qaybta diirka laga soo galo waliba waxa ugu horeysa ishaadu qabanaysa waa parking-kii oo dabcan isagana aynu arki doono. gurigan waxyaabaha aan u sameynay waxa kamid ah in daarada gurigan aan macaamilka uga faa'iideyno anagoo ka ilaalinay in guriga wada marmar laga dhigo. sidaa darteed cabir kasta 1 mitir oo kasta oo gurigan kamid ah macaamilka waan uga faa'iideynay anagoo ka ilaalinay inuu 1 mitir xitaa ugu yaraan ka qasaaro anagoo ugu sameynay dhir kala duwan sidoo kale meel lagu caweeyo ama lagu nasto swimming pool iyo geedo kala duwan dabcan oo diirka iyo daarada guriga si fiican u qurxinaya. markii swimming pool aan guriga u sameynay macaamilka oo kala tashanay maadaama cimilada Afrika inta badan iska kulushahay macaamilku uu naga ogolaaday. qaybtan idin muuqata waa qaybtii parking-ka oo dabcan noqonaysa qayb qaadi karta 2 gaari ilaa 3 gaari. marka ugu horeysa gurigan la soo geliyo albaabka guriga waa muraayad anagoo kalsooni weyn ka qabna qaybta diirka oo dabcan aan u sameeyay electricity oo ay adag tahay in dibadda guriga laga soo galo ama diirka laga soo dhaco. marka ugu horeysa gurigan la soo galo waxa ugu horeysa ishaadu qabanaysa waa qaybtii familiga waqti ku qaadanay oo dabcan TV ku yaalo iyo miiskii cuntada iyo sidoo kale muraayad la isku daawado oo daarada ku taala. fadhiga midabada daaqada dhammaantood waxaan ka dhignay kuwa is wada waafaqsan midab ahaan sidoo kale daaqad waafi aan u sameynay. muraayadani waa muraayad dhammaan familiga ka wada dhaxaysa oo dabcan wax kasta looga baahan karo loo adeegsan karo haddii tahay inuu qofku wax ku marsan karo iyo haddii kaleba. sidoo kale dining-ka iyo kitchen-da waan isku ag dhaweynay si fudud marka laga cunteynayo kitchen-da iyo dining-ku ay isku ag dhawaadaan. kanina waa muuqaalka dhammaystiran oo ah family area ama halka qoysku waqti ku wada qaadanayo. qaybtani waa qaybtii kitchen-da oo ugu talagalnay inuu yeelato lighting qaybta waliba cuntada lagu karinayo ama weelka waxyaabaha lagu meedhayo inuu lighting fiican u yeesho si qofku wax walba oo kala arki karo. sidoo kale waxaan u sameynay double oven ama 2 oven iyo sidoo kale talaagad waafiya oo ku filan dabcan kitchen-da iyo waxyaabaha loo adeegsanayo. sidoo kale daaqado waafiya aan u sameynay si light iyo iftiin ku soo galo maadaama kitchen-da inta badan kulushahay. kanina waa qol aan ugu talagalnay 2 qof loogu talagalay dabcan saa ku muuqato waa 2 sariirood maadaama yaalaan 2 qof loogu talagalay. sidoo kale materials-ka aan adeegsanay qolkan waxaanu ka dhignay materials isu waafaqsan. qaybtan ku muuqata waa qayb wax lagu akhrisan karo dabcan muraayadda ana sababtan ugu sameynay waxa weeye maadaama qolkan aanan uga baahnayn inuu qofku muraayad dibadda uga baahdo hadduu labisanayo haddii kaleba marka sababahaasaan u adeegsanay. sidoo kale muraayaddu dhisaanka qurxintiisa iyo lighting-kiiba way ka qayb qaadatay. sidoo kale waxaan u sameynay daaqad waafiya iyo daaheedii oo dabcan si iftiin u wanaagsan maalintii natural light-ka uu soo galo iyo hawo fiicaniba. qaybta ceiling-ka waxaanu ka dhignay qayb simple oo dabcan waafaqsan design-kii iyo midabkii design-ka. qolkan waxaa la odhan karaa waa study room sidoo kale wuxuu noqon karaa studio. sababtan ugu darnayna waxa weeyaan codsi macaamilka ka yimid oo ahaa maadaama macaamilku inta badan yahay qof online ku shaqeeya
in uu helo meel waafiya oo meelihii dibadda ahaa uu tegay uga maarmo, sidoo kale uu noqdo meel wax lagu akhrisan karo. labadiiba waan iskugu darnay inuu studio u noqdo iyo inuu noqdo qayb wax lagu akhristo. qolka study roomka ama aan ugu talagalnay wax lagu akhristo waxaanu ku sameynay dabaqa sare si viewga magaalada iyo hawo fiican uu qolku u helo. qofku markuu wax akhrisanayna viewga magaalada uu halkaas si fiican uga arki karo. qaybtani waa qolkii master bedroomka oo dabcan material ahaan iyo kalar ahaan baan isu waafajinay. qaybtan master bedroomka waxaanu ka dhignay qol waafiya, sidoo kale haddii koomadiinada noqoto, hadday dhammaan sariirta iyo dhammaan qolkaba ay noqoto, material ahaan iyo midab ahaan baan isu waafajinay si qolku viewgiisu uu qurux badnaado. daaqadaha gurigan waxaan u adeegsanay daahyo loo yaqaano blendis. dabcan waa daahyo marna qaab shabaga noqonaya oo isku noqonaya, marna kala baxaya oo dhammaan daaqadii wada qarinaya. sababtaanu nooca daahan u dooranay waxa weeye inuu ka fudud yahay daahi marada ahaa ee kale. qaybtani waa qayb dabcan iyadana wax lagu akhrisanayo ama la adeegsanayo oo kamida dalabyadii macmiilku lahaa. qaybtan sidoo kale waxay noqonaysaa closet ama kabar dharka lagu rito, iyo sidoo kale qaybta hoosta oo noqonaysa iyadana qaybtii kabaha loogu talagalay. iyadana design ahaan iyo material ahaan baanu qolka waafajinay. qaybtan waxay noqonaysaa balconygii oo marka master bedroomka dibadda looga soo baxo waqti lagu wada qaadan karo oo hadday noqoto viewga magaalada si fiican looga arki karayo. gurigan waxaan u sameynay living room waafiya oo dabcan waafaqsan materialka iyo midabka guriga. dhammaantood midabada gurigan ka kooban yahay dhammaantood way iswada waafaqsan yihiin. gurigana wuxuu ka kooban yahay 3 midab oo kaliyaata. wuxuu ka kooban yahay midabka cadaanka iyo midabka bunniga iyo midabka madowga ah. 3 midab oo gurigan dhinac walba marka laga eego uu ka kooban yahay. intaa midab mooyaane midab kalena kuma arkaysid, si markaa viewga iyo indhaha iyo quruxda guriguba ay isku qaadan karaan. sababtaasaan u adeegsanay 3 midab. sidoo kale ceilinka living roomka waxaanu ka dhignay ceiling simple oo waafaqsan dhammaan ceilinada kale guriga. gurigan guryaha kale waxay kaga xidhmayaan hal dhinac oo kaliya, sidaa darteed waxaa u bannaan gurigan 3 wajahadood. maadaama gurigan 3 wajahadood haysto waxaanu ka faa'iideysanay jaaniska 3 wajahadood ee guriga u bannaan, anagoo u sameynay daaqado waaweyn oo waafiya oo guriga iftiin badan iyo sidoo kale hawo fiican oo gurigan uu helo. kanina waa muuqaalka guud ee guriga oo dabcan guriga gudihiisii iyo dibadiisii dhammaantiisa wada aragteen. qaabka muuqaalka guud ee guriguna qaabka muu noqonaya. meelaha aanu gurigan awoodda saarnay waxaa ka mid ah dhirta iyo lightinka. wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada kaaga muuqda iyo barahayga bulshada.